muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa madaxda ugu ilaalada adag dunida. intaan u gudagelin haddii aad ku cusub tahay janaalka maanta subscribe dhe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Kim Jong-un waa mid ka mid ah madaxda ugu ilaalada adag dunida. safarkii ugu dambeeyay ee uu ku booqday waddanka deriska la ah ee Kuuriyada Koonfureed waxa uu watay ilaalo qaas ah oo gaaraya 12 nin, kuwaas oo gaariga labadiisa dhinac iyo gadaal ordayay iyagoo ilaalinaya ammaankiisa. badanaa ma safro la'aanta mootooyinka iyo gaariga, waana kuwa kaliya uu ku kalsoon yahay. guud ahaan ilaaladiisa gaarka ah waxa ay gaarayaan 15,000. intaasi oo kaliya maahan ee waxaa jira 120,000 oo askari oo qaabilsan difaaca caasimadda Pyongyang. sababta keentay in sidaas loo ilaaliyo aabihiis iyo awowgiis ayaa ka badbaaday kumanaan isku day oo sirqool ah. Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga waxaa ilaaliya sakuurad si qaas ah u tababaran. marka uu safrayo waxa uu wataa ilaaladiisa goonida ah, kuwaas oo mararka qaar ku socda xawaare zaa'id ah. haddaba maahan ilaaladiisa kuwaas oo kaliya ee waxaa kaloo ilaaliya kuwa meelo fog wax ka toogta, waxayna la socdaan dhaqdhaqaaqa. wixii ay ka shakiyaan waa ay toogtaan. Erdogan kuma socdo gawaarida yar oo kaliya ee mararka qaar waxa uu ku socdaa bas, kaasoo ammaankiisa aad loo adkeeyey. dusha sarena waxaa ka saaran ilaalo aad uga taxadarta amnigiisa. Shinzo Abe waa ra'iisul wasaaraha ugu da'da yar dalka Japan. waxa uu leeyahay dalka boqortooyo dastuuri ah. madaxweynihii hore Ikohito waxa uu sameeyey sharci ah qaabka loo ilaalinayo madaxda ugu sarreysa dalka. iyada oo laga duulaya aragtidaas ayaa ra'iisul wasaaraha ilaaladiisa loo isticmaalaa tiknoolajiyad aad u horumarsan. weliba waxaa ilaaliya shirkad gooni ah taasoo mas'uul ka ah amnigiisa. marka uu soconayo wax jidada looma xiro, xitaa haddii uu marayo waddooyinka aad ku mashquulka ah. ilaaladiisa ayaa baabuurta daaqadooda ka soo baxaya, waxayna ku amrayaan gawaarida inay tartiib u socdaan. sida madaxda kale ee dunida ma isticmaalaan mootooyin, sababtoo ah waddooyinka Japan ayaa ah kuwo mashquul iyo ciriiri ah. Donald Trump inta aan loo dooran xafiiska madaxweynenimo ee Mareykanka waxa uu ahaa ganacsado milyaneer ah. waxa uu lahaa ilaalo qaas u ah oo aad u tababaran, kuwaas oo ilaalin jiray nafsadiisa. xigasho telefishinka CNN, Trump intuusan imaan xafiiska ka hor ilaalada ganacsigiisa New York waxa uu ku bixin jiray lacag ka badan $1 milyan maalinkii. Vladimir Putin ilaalada madaxweynaha Russia waxa ay mas'uul ka yihiin waddanka oo dhan difaaciisa, waana kuwa leh aqoon amni oo aad u sarreysa. 2,000 oo xafiis ayaana mas'uul ka ah ilaalada Putin iyo waxyaabaha muhiimka u ah waddanka. shaqada ugu weyn oo ay qabtaanna waa ilaalada madaxweynaha. Xi Jinping Shiinaha ciidamo qaas ah ayaa ilaaliya madaxda ugu sarreysa dalka oo uu ka mid yahay madaxweynaha. security-ga mas'uuliyad ayaa ka saaran ilaalinta xisbiga dhexe ee Shuuciga oo la yiraahdo Communist Party. tira ahaan shaqaalaha iyo ilaalada waxa ay gaarayaan 8,000, kuwaas oo ah 7 qaybood oo qayb kasta ay leedahay shaqo iyo tababar u gooni ah. ilaalada qaaska u ah xafiiska madaxweynaha waxaa la siiyaa tababar gooni ah. mid kasta oo ka mid ah askarta ilaalada waxa uu wataa 3 xub oo kala duwan, waxayna diyaar u yihiin wax kasta oo ku yimaada madaxweynaha in ay ka hortagaan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janaalka maanta subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. hana hilmaamin in aad booqato janaalka kale Maanta Technology.